asalaamu calaykum rabadaan mubaarak waxaan idinla wadaagaynaa barnaamij aan ugu talagalnay inaan idinku soo gudbino hadba kitaabkii ama dhiganihii aan u aragno inuu bulshada manfacu leeyahay sidoo kalena aynu u baahannahay inaynu wax ka ogaano. waxaanu ku bilaabi doonaa kitaabka dhambaalada nebiga caleyhi salaatu wasalaam, rasaa'ilu min annabiyi sala allahu caleyhi wasalam, kaasoo uu qoray qoraaga carbeed doctor adham sharqaawi, sidoo kalena afkeena hooyo uu ku turjumay cabdixakiin absiiye. dhiganahan oo ah runtii dhigane aada u cajiiba kana kooban 300 oo rasaayil ama 300 oo dhambaal oo ka sugnaaday xabiibkeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, kuwaasoo taabanaya dhinac walba oo nolosheena ka mid a, hadday tahay xidhiidhadii, saaxiibtinimadii, usradii iyo qoyskii, jaarkii, yacnii nolosheena dhinac walba ka taabanaya. ayaanu anaguna isku dayi doonaa inaanu idinla wadaagno maalin walba 1 ama 2 dhambaal oo kamid a dhiganahaas, maadaama nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ay ka sugnaatay balliquu canii walawaaya, iga gaarsii aayadna ha noqotee. haddaba dhambaalka maanta aynu ku iibo furi doono waxa uu noqon doonaa faacinnii cala nafsika bikasrati sujuud, igu caawi sujuud badan. saxaabiga rabiica binu kacab aslami ayaa yidhi, xabiibka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaan u hoyday, kadib waxa aan u dhiibay weyso iyo xaajadiisii. nebiga ayaa igu yidhi iweydiiso, ama yacni iweydiiso waxa aad u baahan tahay. waxa aan ku yidhi, xabiibka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa aan ku weydiisanayaa inaan kugula rafiiqo jannada. waxa uu igu yidhi nebigu caleyhi salaatu wasalaam, wax kale ma doonaysaa ama wax kale may weydiisanaysaa? waxaan ku yidhi maya. nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu igu yidhi, faacinnii cala nafsika bikasrati sujuud, igu caawi sujuud badan. haddaba xadiiskan ama dhambaalkan nuxurka aynu kala dhex baxaynaa waxa uu yahay in nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaamna ha noqotee qof bila-aadani aanu awoodin inuu camalkiisa jannada kugu geliyo, balse idanka ilaahay waxaynu ku geli doonaa naxariistiisa. cibaadooyinkuna waa sabab. haddii aad ka tagto qur-aanka oo uu boodhaysto musxafkaagu, haddii aad ka wahsato salaada oo aad ilaalin weydo wakhtigeeda, haddii aad salaada habeenkii u aragto shay aad ka maarmi karayso, haddii aad sadaqada u aragto xoolo daadaadin, iyo haddii uu carabkaagu ka daalo xuska alleh, maxaad u rajaynaysaa naxariistiisa iyo dembidhaafkiisaba? asalaamu calaykum.